fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkan subscribe saar gambaleelkan furo si aad u hesho muuqaal walba aan halkan soo gelino. mahadsanid. mowduuceena maanta wuxuu ku saabsan yahay quraanka iyo sayniska. barnaamijkani wuxuu inoo ahaan doonaa taxane. haddaba maanta kusoo dhawaada qaybta koowaad. waa maxay muhiimadda ay leedahay inaan maanta isbarbar dhigno quraanka iyo sayniska? waqtigii uu nebigu quraanka kusoo degayay waxay ahayd waqtigii carabtii iyo jiilka waqtigaa noolaa ay isku faanaan aftahannimada, fasaaxada hadalka, gabayada iyo suugaanta. hase ahaatee markii ay arkeen quraanka macaankiisa iyo xigmada uu xambaarsan yahay ayay dhammaan dadkii saminkaas noolaa oo dhan isku raaceen inuu quraanka wax la mid ah oo u dhigma aysan jirin. haddii waqtigii uu quraanka soo degay ay ahayd waqtigii suugaanta iyo gabayada, haddaba maanta waa waqtigii sayniska iyo tiknoolajiyada. maadaama maanta ay tahay qarnigii sayniska iyo tiknoolajiyada, ma sahlan qof aan islaam ahayn inaad ka dhaadhiciso in quraanku yahay hadalka ilaah. sidoo kalena nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam inuu yahay rasuulka adigoo tusinaya luuqad qurxoon iyo ereyada macaan ee uu quraanku xambaarsan yahay. saynisyahanada maanta waxay isweydiiyaan sidee suuragal ku tahay in quraanka oo soo degay 1400 oo sano ka hor inuu ka hadlo wax ku saabsan biology-ga, medicine-ka, zoology-ga, hydrology-ga, geology-ga, botany, zoology. intaas iyo in ka badan ay isweydiiyaan saynisyahanada ayagoo dhahayo arrintani arrin macquul gal ma ahan. sidee dunida aynu ku noolnahay kusoo bilaabatay? sidee dunidan isku dheelitiran ee isku jaanto go'an loo nashqadiyey? sidee dhulkan aynu ku noolnahay uu noqday mid nagu filan isagoo aan qaab ahaan u eg mid la goglay? su'aalahan ayaa noqday waxa ugu badan ee saynisyahanada reer galbeedka ku mashquulaan. ugu dambeyn intoodii ugu badneed waxay garwaaqsadeen oo ay isku raaceen inay jirto awood weyn oo Allah subxaanahu wa tacaala xaggiisa ahaatay oo hagaajisay hanaanka iyo habsami u socodka dunida aynu ku noolnahay. Allah subxaanahu wa tacaala mar kale isaga oo bini'aadamka si cad u xusuusinaya sida ugu fududeeyay dadka ku nafcinta uunkiisa kale wuxuu yiri: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر. ilaahay wuxuu idin saqiray habeenkii iyo maalintii, xidigana waxaa lagu saqiray amarkiisa. arrintan uu Allah subxaanahu wa tacaala quraankiisa ku sheegay 1400 sano ka hor ayaa waxaa si cilmiyeysan u xaqiijiyay khubaro saynisyahano ah loogana dambeeyo cilmiga falaga ama astronomy. waxaana ka mid ah saynisyahanadaasi Galileo, Kepler iyo Isaac Newton oo dhammaantood cilmi baaris ku ogaaday inaysan suuragal ahayn adduunkani inuu ku sameysmay si dabeecad ah oo aan cid soo agaasimin. haddaba saynisyahanada qaar ayaa aaminsan wax la yiraahdo materialism, waa aragti tilmaamaysa in wax walba ay dabeecad ku sameysmeen nature ahaan, aanay jirin adduunkan cid abuurtay. iyadoo cilmi ahaan iyo caqli ahaanba la ogaaday waqti hore in dunidan uu Allah subxaanahu wa tacaala abuuray, haddana waxaa jira qaar ka mid ah saynisyahanada oo garab ka helaya mulxidiinta oo aaminsan in adduunkan uu yahay mid weligiis jiray oo aan cidna abuurin. waxaa jiray saynisyahano qabay in adduunka aysan jirin cid abuurtay oo wax walba ay dabeecadu keentay oo aanay dunidan bilow ay dhammaan doona lahayn. ugu dambeyntii 1922 fiisiksyahan u dhashay dalka Russia Alexander Friedman ayaa ogaaday in adduunka uusan weligiis ahayn mid sidaan ah, balse uu soo maray marxalado kala duwan. lagana yaabo in adduunka dhan uu ku soo bilowday. sidoo kale Alexander wuxuu sheegay in adduunkan uu ku soo bilowday wax aad u yar. Alexander Friedman arrintan wuxuu ogaaday 1922 waxaa baaris dheer ah ku sii sameeyay Edwin Hubble sanadkii 1900
29kii oo ugu dambeyntii ogaaday in dunida ay sii fidayso bilowgeedii horena ay kasoo bilaabatay hal unug oo isku dhegan, kadibna uu dhacay kala tag baahsan oo ugu dambeyntii adduunka aynu ku noolnahay ku samaysmay wax la yidhaahdo the big bang, dunida sii fidaysa. waxaa intaas sii dheer Edwin Hubble ikhtiraciisii inuusan ahayn aragtiyo mal awaal, balse uu ahaa xaqiiq cilmiyeed oo la tijaabiyey. weliba Edwin Hubble wuxuu intaas sii raaciyey in kala tag baahsan markii uu dhacay kadibna inay wax walba samaysmeen. arrintan ay saynisyahanada ogaadeen wax ka yar 100 sano ka hor ayaa Allah subxaanahu wa tacaala quraankiisa inoogu sheegay in ka badan 1400 sano ka hor. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. miyaynan arkaynin kuwii gaaloobay in samooyinka iyo dhulka ay ahaayeen kuwo isku dhegan oo aan kala bixinay? dad badan ayaa isweydiinaya sidee buug ama kitaab 1400 sano ka hor dunida kusoo biiray ee suuragal u tahay inuu si cad u sheego sida ay dunida kusoo bilaabatay, isagoo aan eray ku khilaafaynin sida cilmiga sayniska ee casriga ah uu maanta tilmaamayo. jawaabta wax kale ma ahan ee waxa ay caddaynaysaa in kitaabka qur-aanka uu soo dejiyey ilaah abuuray caalamka. haddaba maanta barnaamijkeena intaas ayuu ku egyahay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.